safiirka dowladda Turkiga oo fadhiya magaalada Muqdisho Kamaluddin Thani Trump oo maanta warbaahinta la hadlayay ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyay shirka dowladda Turkiga ay ku qabanayso magaalada Istanbul ee dalkaasi Turkiga. safiirka dowladda Turkiga ayaa waxa uu sheegay in shirkaasi looga talagalay dadka Soomaalida isla markaana looga hadlayo danaha iyo maslaxada Soomaalida. waxa uu sheegay in shirkaasi ay ka qayb galayaan dhammaan dhinacyada Soomaalida isla markaana ay ka wada hadlayaan danahooda. waxa uu carabaabay in shirkaasi ay ka qayb galayaan dhalinyarada, odayaasha, haweenka iyo sidoo kale ardayda. It has been decided at the end of London conference that a second international conference for Somalia will take place in Istanbul. sida abada socdaan gabagabadii shirkii London waxaa la soo saaray in la qabto shirka labaad Soomaaliya qabanayo kaas oo loogu talagalay inuu ka dhaco magaalada Istanbul. This conference will not just about you, but it will be for you. shirkaan ma noqon doono wax idin kaliya ku saabsan laakiin waa wax idinku aamintiin. Unlike the previous conference, Istanbul conference will not be participated just by politicians, but civil society as well. shirka Turkiga ma noqon doono mid loogu talagalay kaliya siyaasiyiinta, waxaa kasoo qaybgalayo bulshada rayidka ah. We want the international community to hear the voice of grassroots organizations of Somalia in Istanbul conference. waxaan rabnaa in meesha caalamka ay maqasho codka dadka grassrootka ah ama dadka miisaanka leh kasoo qaybgalaya si ay uga soo qayb galaan shirkaasi wuxuu magaalada Istanbul. Kamaluddin Thani Trump ayaa sheegay in bisha June ee sanadkan aan ku guda jirno uu shirkaasi ka dhacayo magaalada Istanbul ee xarunta dalka Turkiga. si kastaba dowladda Turkiga ayaa waxa ay tahay dowladda kaliya ee Soomaaliya sida wanaagsan ugu soo gurmatay tan iyo markii abaaraha xoogan ay ku dhufteen dalka Soomaaliya. hadalka safiirka dowladda Turkiga ayaa waxa uu imaanayaa iyadoo 23 Febraayo magaalada London lagu qabtay shirkii looga hadlayay arrimaha Soomaaliya oo ay soo qaban qaabisay dowladda Ingiriiska kaasi oo ay ka soo qayb galeen dhinacyada Soomaalida.